kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka qodobada daawadayaal barnaamijkeenu ku eegi doona haddii Allah awood leh oo raali ka noqdo waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal qarar oo ka soconaya wadanka Ethiopia TPLF oo ku sii siqaysa magaalada Kombolcha ciidankii ugu xoogana oo federaalka Ethiopia iyo kuwa Amxaarada oo iyaguna diyaar garow adag ku jira mar kale daawadayaal soo dhawaada waa hagaag daawada haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe noo saar sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mar walba oo aynu war soo gelino haddii kalena saaxiibadan aad ka mid tahay barnaamijkan inoo la garay si uu dad badan u gaaro mahadsanid aynu ku bilowno dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Ethiopia oo garab ka helaya kuwa Amxaarada iyo TPLF oo dhinaca ayaa lagu soo waramayaa inuu ka soconayo gobolka Amxaarada waxaana dagaalkaasi uu u dhaxeeyaa si gaar ah ciidamadii la wareegay Disay ee ku sii socday dhanka Kombolcha iyo sidoo kale ciidankii hore looga saaray magaaladaasi dagaalka ayaa isku sii fidinaya deegaano hor leh oo nabdoon iyadoo xaaladdu ay u muuqato mid aad u sii adag oo meel adag sii maraysa waxaana sidoo kale arintu ay u muuqataa mid ka sii daraysa haddii aan degdeg wax looga qaban wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in dowladda Ethiopia ay ciidamo aad u badan iyaduna ay u soo dirtay dhanka Disay isla markaana la doonayo in ay difaacaan Kombolcha si aanay u gaarin ciidamada TPLF halkaasi dhinaca kalena TPLF ayaa waxa ay xoojiyeen magaalada Disay halkaas oo ciidamadii ugu badnaa oo TPLF ah ay galeen waxaana wararku ay sheegayaan in iyaguna ay wadaan abaabul kale oo ay rabaan in ay deegaano kale ku gaaraan dowladda Ethiopia xaaladda aad ayay ugu adag tahay waxaana xilli walba la filan karaa dagaalka inuu noqdo mid sii qaraaraada diyaaradaha dagaalka Ethiopia ayaa iyaguna dagaalka qayb ka ah waxaana ay duqeynayaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF walow mararka qaar duqeynta ay ku dhacayso goobo ay joogaan dad rayid ah dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday mucaaradka Tigreega in ay ka baxaan gobolada Amxaarada iyo Canfarta ee waqooyiga Ethiopia halkaas oo dagaalka uu sii xoogeystay qoraal laga soo saaray waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa looga dalbaday TPLF inay hakiyaan ku siqitaankooda magaalooyinka waaweyn ee gobolada Amxaarada iyo Canfarta sida Disay iyo Kombolcha TPLF ayaa horey u sheegtay inay magaalooyinkaasi gaar ahaan Disay ay la wareegtay inkastoo dowladdu ay sheegayso in arintan ay waxba kama jiraan tahay ciidamada Tigreega ee dagaalka kula jira dowladda Ethiopia ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada istiraatiijiga ah ee Disay soona bandhigeen muuqaalada magaaladaasi ciidamadoodana isku soo sawireen nawaaxiga jaamacadda Disay iyo xarumaha waaweyn ee dowladda afayeen u hadlay Tigreega ayaa sheegay in ciidamadoodu hadda ay ku wajahan yihiin Kombolcha Disay waxa ay Addis Ababa u jirtaa wax ka yar 400 oo kiiloomitir haddii ay jabhadan ay magaaladan si buuxda ula wareegtana waxay noqon doontaa in ay ku sii siqaan koonfurta ugu fog ee gobolka Amxaarada TPLF ayaa la soo baxday awood aan la filin iyadoo oo dowladda Ethiopia ciidankeedu markii ay iska hor yimaadaan kuwa TPLF lagu soo waramayo inay dib u gurasho sameeyaan isla markaana ka cararaan goobaha dagaalka ama aagaga dagaalka taas oo ilaa iyo hadda sababta la ogeen dowladda Ethiopia oo hub iyo sidoo kale saanad ciidanba xilli walba ciidankoodu ay helayaan ayaa ku fashilmaysa dagaalada ay kula jirto TPLF iyadoo dhinaca kalena TPLF la sheegayo in ay haystaan ciidamo aad u tababaran oo horeyba uga mid ahaa ciidamada dowladda Ethiopia iyo sidoo kale hubkii ay keedsanayeen 30 sano ee ugu muhiimsanaa oo hadda ay la soo baxeen dagaaladana ay la soo galeen taas oo keentay inta aysan magaalo qabsan marka hore inay magaaladaasi duqeeyaan kadibna ciidamadooda lugta ay galaan sidaasna magaalada ay kula wareegaan falanqeeyaasha arrimaha ammaanka Ethiopia waxa ay sheegayaan in xaaladda faraha ay ka sii baxayso isla markaana loo cabsanayo in TPLF ay la wareegaan magaalooyin kale oo hadda ka baxsan goobaha dagaalka xilli walbana weeraradaasi ama dagaaladaasi la sii filan karo dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa su'aal laga keenay sababta uu u daba dhigtay qamadiga mucaawinada ah ee Ethiopia la keeno Abiy Ahmed ayaa ku andacooday in dhibaatada ugu weyn ee ay haysato dalkiisa ay tahay mucaawinada qamadiga ah ee la siiyo dalkaasi dhibaatada haysata Ethiopia waa mucaawinada qamadiga gargaarka qamadiga ah waxaa ka dhasha cudurro haddii aan joojino dhibaatooyin badan ayaa la xalinaya ayuu yiri Abiy su'aasha waxa ay tahay Abiy ma ku saxan yahay in mucaawinada qamadiga ah uu la xiriiriyo in ay ka dhashaan cudurro iyo sidoo kale caqabadaha kale ee haysta Ethiopia isticmaalka qamadiga ayaa sanadihii u dambeeyay ku soo batay Ethiopia gaar ahaan magaalooyinka waaweyn haatan Ethiopia waxay noqotay dalka
ugu soo saarista badan qamadiga dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika, inkasta oo xilliyadii u dambeeyay uu hoos u dhac ku yimid wax soo saarka marka loo barbardhigo baahida jirta. Ethiopia waxay wajahaysaa cunto yari iyo saameynta ka dhalatay abaaraha. Malaayiin qof ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo. Sida loo daboolo baahida, Ethiopia waxay haatan soo dhoofsanaysaa qamadi badan. Mareykankana wuxuu Ethiopia gaarsiiyaa qamadi mucaawino ah. Abiy oo la hadlayay beeraleyda gobolka Oromada wuxuu sheegay in cudurro ay ka dhashaan qamadiga laga soo dhoofiyo dibadda. Dhibaatada ugu weyn ee haysata beeraleyda Ethiopia ayaa ah cudurro ku dhaca dalagga qamadiga kaasoo ka dhasha dabaysha. Cudurkan wuxuu sanadkii 2010 si ba'an u saameeyay beeraha qamadiga ee Ethiopia, taas oo hoos u dhigtay in ka badan 15% wax soo saarka dalagga qamadiga ee dalkaasi. Daraasad la sameeyay sanadkii 2017 ayaa muujinaysa in nooc ka mid ah cudurradan saameeyay beeraha qamadiga ah ee Ethiopia uu ka yimid dhinaca Yemen, kaas oo khasaare xooggan gaarsiiyay beeraleyda. Waxaa suuragal ah in cudurrada ku dhaca dalagga beeraha uu dalka ku soo geli karo raashinka gargaarka ee dibadda ka yimaada, sida uu sheegay Wilitaa Tadesse oo ah khabiir ku takhasusay wax soo saarka qamadiga oo ka tirsan xarun caalami oo qaabilsan cilmi baarista beeraha. Cudurrada ku dhaca dalagga beeraha ayaa u soo gudbi kara dalalka aanan si adag u baarin dalagga uga imaanaya dhinaca dibadda si loo hubiyo tayadooda. Waxaa jira warar sheegaya inta badan cudurrada ku dhaca dalagga beeraha iyo sidoo kale cayayaanka ayaa haatan saameeyay beeraleyda in laga keenay dibadda, ayuu yiri Wilitaa. Wabiyadeenna, harooyinkeenna, beeraheenna iyo dhulkeenna waxaa halis ku haya cawska aanan loo baahnayn kaas oo aan horay loogu arag Ethiopia. Khubaradu waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo dalag kasta oo laga keenayo dalka dibaddiisa si looga hortago cudurrada. Guud ahaan caalamka waxaa laga hayaa dhacdooyin lala xiriiriyay in cudurrada ku dhaca dalagyada in laga keenay dibadaha. Tusaale ahaan, cudur saameeyay beeraleyda qamadiga wuxuu isaga tallaabay Mareykanka ilaa Bangladesh, wuxuu markii dambe u gudbay dhinaca Zambia kadib markii qamadiga ay gaartay halkaasi. Hay'adda caalamiga ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha gargaarka ayaa sheegtay mucaawinada uu Mareykanka bixiyo waxa udub dhexaad u ah in si adag loo hubiyo tayada raashinka gargaarka ah iyada oo la raacayo habraacyada caalamiga ah ee hubinta tayada dalagyada. Guud ahaan daawadayaal, intaaynu kusoo gabagabeynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV. Barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.